15 muwaadin oo u dhashay Kenya oo lagu adoonsado Soomaaliya. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in 15 kalluumaysato Kenyaan ah xoog loogu kaxaystay isla markaana u shaqeeyaan doon kalluumaysi oo laga leeyahay Soomaaliya. Guddiga kalluumaysatada Kenya ayaa sheegay in 15 nin gacanta lagu dhigay si qasab ahna lagu shaqaaleysiiyay iyaga oo aan la siinin wax lacag ah. Priti Mekene oo ka mid ah guddiga u dooda xuquuqda kalluumaysatada Kenya ayaa sheegay in kooxaha doonta saaran ee Soomaalida ah ay hubeysan yihiin isla markaana sida adoonta oo kale ugu shaqeystaan kalluumaysatada Kenyaanka ah. Mr. Priti ayaa sheegay in shaqaalaha Kenyaanka ah ay ku jiraan halis loona baahan yahay in la soo badbaadiyo. Isaga oo ugu baaqay dowladda Kenya in ay qaado tallaabo lagu badbaadinayo. Wuxuu intaas ku sii daray in muwaadiniintan lagu shaqeysto saacado badan maalintii haddii ay diidaanna loo adeegsado cabsigelin. Maadaama dadka ku shaqeysta ay hubeysan yihiin, ma uusan sheegin halka lagu hayo, meesha laga qabsaday iyo waqtiga la qabsaday toona. Hase yeeshee waxa uu warbaahintan Kenya u xaqiijiyay dhacdadan cajiibka ah.